aqooni ku dhisan tahay si aan lagu degdegin si aad looga baaraandegay loo soo agaasimay carwadan aan maanta ka qaybgalayno oo xambaarsan qaybo kala duwan runtii aad ayaan u soo dhaweynaynaa waxaan rabaa marka anigoo fursaddan ka faa'iideysanaya inaan mahad runtii ballaaran inaan u soo jeediyo qabanqaabiyaasha maanta rugtaan ganacsiga ee aan isugu nimid ama Somali Trade Show injineer Cabdisataar iyo dhammaan qabanqaabiyaasha xafladda runtii carwadan runtii waxa weeye waxaan u jeedinayaa mahad ballaaran runtii mahad oo idinka gaarto shaqadii aad qabateen maanta waxaan u joognaa miro dhalkeedii runtii xafladaha taani ama munaasabadan waa nooga duwan tahay munaasabado badan oo hore uga soo qayb galnay waxay soo bandhigeen waxyaabo ku cusub runtii ganacsigeena ama carwooyinkeena ama waxyaabihii la soo bandhigayo maalmahan waxyaabo dheeraad ku ah waana tan la rabo in lala yimaado hal abuur oo dadka Soomaaliyeed oo aan niraahno waa dad hal abuur leh gaar ahaan dhalinyaradu inay la yimaadaan aysan noqon wax la koobiyay sida qoyaanadu halkaan ay ka sheegeen oo aan la dhihin carwa la dhigay ana carwaan sameynaa ay noqoto maxaad uga duwan tahay carwadii hore la qabtay haddii shalay la qabtay alxamdulillah waa lagu qabtay taasun baa la sii xoojinaa laakiin tani waxa weeye waa mid dhammaan isku soo xoorinaysa dhammaan waxyaabihii aan qabanaynay maalmahan ku soo dartay waxyaabo aan rajeynayno inaan ka faa'iideysan doono oo dalkeena ganacsigeena meesha uu maraayo ka qaadaysa gaarsiinaysa meel ka duwan runtii hadda ganacsigu waa isha kaliya ama tiirka kaliya ama sektorka kaliya ee Soomaaliya intii ay burbursaneed ay ku tiirsaneed runtii aad ayaan ugu mahad u celinayaa ganacsatada Soomaaliyeed oo ay hogaaminayaan rugta ganacsiga iyo warshadaha runtii meesha ay Soomaaliya ka soo qaadeen iyo maanta meesha ay joogto waa wax lagu faani karo shirkadihii halkaan ku soo bandhigayay waxyaabaha ay u qabtaan ay u hayaan shacabka Soomaaliyeed shirkadihii halkaan ka hadlay waa dhamaantood waxay mudan yihiin in lagu amaano maanta waxaan joognaa marka meel aan ku faani karno shirkadaheena meel aan ku faani karno bunuugteena meel aan ku faani karno gaar ahaan shirkadaheena xagga technology-ga ama wuxuu ahaa xagga taleefanada ay yihiin kuwa ugu horeeya meelo badan oo Afrika kamid ah ay ka horeeyaan service-ka ay qabtaan xagga xawaaladaha xagga bunuugta runtii tadawur fiican ayaa laga muujiyay waxaan rajeynaynaa tadawurka xagga laga muujiyay ama muxuu ahaa aan ka sameynay dhinaca qadamaadka ama service-ka inaan u bedelno dhinaca wax soo saarka wax badan ayaa la sheegaa dalkeena dhamaantiina waa sheegteen aqoonyahankii yaa sheegay halkaan ka hadlay dhamaantood oo Shariif iyo kamid yihiin iyo muxuu ahaa iyo Faisal iyo dhammaan iyo Sabax saaxiibkay muxuu ahaa dhamaantood way sheegeen marka inaan ku celceliyo uma baahna laakiin macna ma noo sameynayso dalkeena inaan yiraahno xeebta labaad ee Afrika ugu dheeraan leenahay waa la ogyahay waa news ma cid walba way ogtahay inaan yiraahno 8 milyan oo hektar ayaan leenahay wax ka baxaan oo wax laga soo saari karo waa la ogyahay okay inaad niraahno wadanka xagga xoolaha wadanka koowaad ee xoolaha dhoofintooda muxuu ahaa kheyraadka xoolaha ugu horeeya ayaana waa la ogyahay waxaa hadda la ogaanaa inaan kheyraad badan leenahay oo xagga shidaalka iyo macdanta iyadana hadda la ogaanaa waa waxyaabaha u baahan in hadda la gado adduunkana laga gado lana ogaaday u baahan waay laakiin maxaa loo baahan yahay wadankani waxaa kaloo la ogyahay ganacsatada inay ku fiican yihiin xagga ganacsiga inay meelo badan iyo dalal badan ay maanta ay yihiin ay ugu horeeyaan
oy Africa meelo badan oo kamid ah waxay ka sameeyeen dagaaladii markay dhaceen runtii waa la qabaa saaxiibkay Shariif necessity is the mother of invention waxa weeye baahidu waa tan wax ku bartay waa runtii Soomaali badan aqoon badanna waa la helay meelo badan oo la tagi jirin wax badanna waa la soo faa'iideystay laakiin waqtiga maanta maxay tahay waa waqtigii dalkaaga lagu dabaqi lahaa wixii la soo bartay wixii aqoonahoo la soo bartay iyo wixii waayo-aragnimada la soo helay iyo wixii laga faa'iideystay adduunyadii Jabaanka ayaa wuxuu yiraahdaa qofka Jabaanka ahaa muxuu ahaa ayaan 80 iyo waqti dheer markaan masterka sameynaya waxaan qaadan jirnay buugleera Japan number 1 muxuu number 1 ku noqday wuxuu number 1 ku noqday qofka Jabaanka wuxuu ka fikiraa markuu banaanka joogo wuxuu ka fikiraa dalkaaga ama markuu gudaha joogo dalkaaga maxaad u faa'iideyn kartaa oo muxuu ahaa oo dib ugu noqon kartaa marka qofka Soomaaliga waa waqtigan waxa la joogaa meel walba waxaan soo qaadanaa walaalkay Faysal hadalku yiri oo ahaa ganacsatada maalgelinta gudaha waan taan ku shaqeyno waa bolosiga aan siyaasadda aan ku shaqeeyo oo wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha runtii ay dabaqdo waxa weeye ganacsatada gudaha ama wadaniga maalgelintooda ayaa ka horeysa kuwa dibadda dalkeena annaga dhisa karna taas macnaheedu waxa weeye dalkeena annaga dhisa karna cid noo dhisaysa bayraatee malaha waxa kale waa fududayn marka ganacsatada Soomaaliyeed waxaan ku boorinaynaa oo runtii mudnaan leh suuq walba oo la soo helo adduunyada xiriir walba oo la sameeyo muxuu ahaa caalamiga intaba wax mataraay hadaan gudaha wax laga qaban waa run waa iska bayaan caalamka kamid aan nahay kama maarano dalkaliis istaagnaan kara ma jiro laakiin waxa weeye qofku marka uu asagu wax qabsanaayo ayaa wax loo qabanaa wax badan oo qabanay oo maanta aan ku naaloonayno oo bangiya ah oo xawaalada ah oo shirkada maanta muuqda ah oo fire protection ah oo ah kuwa dabka korontada ah ama energy-ga yaa noo qabta ma cid kale noo qabatay Soomaalidu gacanteeda kuma qabsan haddana waxa la sugaaya waxa weeye wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha waxay mudnaanta siinaysaa oo awalka ah ganacsiga sidiisaba waxa weeye boqolkiiba boqol ayaan dhihi karnaa wuxuu noqonayaa ganacsiga gaarka loo leeyahay kaas dastuurkeena ayuu ku yaalaa waxa weeye meesha aan marayno iyo marxaladda aan marayno iyo duruufaha adduunka ka jira ayaa sheegaya ganacsigu inuu yahay ganacsi gaar loo leeyahay oo private uu yahay dawladdu waxay qaadanaysaa kaalinteeda maxay tahay kaalinteedu waxa weeye inay abuurto jawi ganacsigu u hana qaadi lahaa inay shuruucdii u samayso hadda ganacsi soo sharci looma baahna in shuruucda ay u samayso iyo inay dhiirigeliso maalgashiga gudaha iyo kan dibadda intaba waxaa intaas dheer inay dhiirigeliso warshadeyntii dalka iyo wax soo saarka marka yaa ka shaqeynaya wasaaradda ganacsigu waa meeshii ugu dambaysa waay laakiin wadanku wuxuu leeyahay wasaarad beeraha jirto waxaa jira wasaaraddii batroolka wasiirku halkaa uu nala fadhiyay wasaaraddii kalluumaysiga tii xanaanada xoolaha wasaaradahaas la yiraahdo wasaaradaha wax soo saarka haddaysan ayagu aysan shaqeyn oo ganacsatadu ayaguna waxa weeye waa policy iyo shuruuc iyo facilitation ka shaqeynayaan beertina ka shaqeymayaan shirkadana ma wataan shirkadihii waxa weeye hadday beer tahay iyo hadday xoolo tahay iyo hadday tahay warshad iyo hadday tahay kalluun waxaan ka rabnaa ganacsada halkaan fadhiya inay bedelaan mentality-ga ama muxuu ahaa qaab hadda service-ka meel fiican ay soo gaarsiiyeen laakiin in la isku balance gareeyaan rabnaa hadda wixii ka dambeeya service-ka iyo la isku balance gareeyo iyo wax soo saarka wadana sidiisaba wax soo saar ayuu
ku gaaraa horumar waddankeena wuxuu lahaa jiray warshado fara badan si aad ogtihiin dadkii soo gaaray ayaa jooga oo halkaan fadhiya waxaa weeye ilaa 50 meeyo warshadeed maanta oo waaweyn maanta maxaa laga hayaa waxaa weeye dhulkii waxaa laga yaabaa in IDPs ay degan yihiin hadduu bannaan yahana inaan laga faa'iidaysan marka waxaan dhiirigelinaynaa wax soo saarka warshadaha waxaan dhiirigelinaynaa wax soo saarka warshadaha waxaan kaloo dhiirigelinaynaa maalgashiga ganacsatada Soomaaliyeed ay dalkooda maalgashanayaan waxaan dhiirigelinaynaa maalgashiga ganacsatada ajnabiga ah ay dalkan maalgashanayaan waa runtii waa tallaabooyin taas marka maxaa lagu gaari karaa maxayna gaarsiinaysaa waxayna gaarsiinaysaa in dhallinyaradeennu inaan shaqooyin badan u abuurno dhallinyaradeenna in dhaqaalaheenna uu kobco in alxamdulilaahi maanta adduunka wax soo saarka dhoofkeennuna uu kordho oo wax badan aan dhoofino meesha laga hadlaayay hadda waxay ahayd waxa aan dhoofino iyo waxana loo soo dhoofiyo waxa weeye farqi weyn ayaa u dhaxeeya laakiin farqigaas weyn waxa weeye alxamdulillah ma iska imaanayo inay isku soo dhawaadaan adduunku maanta waddan walba wuxuu ka fikiraa waddanka kale maxaad waxaad keenayso waddankay keenayso wax la mid ah waa inaa waddankaaga geeya laakiin maxaan ku xisaabtamaynaa horta haddii aan wixiiba aan soo saarayn oo aysan jirin warshadeyn aysan jirin oo wax soo saarkii uu aad u yaryahay ma ka fikirnay baahida dalkeenna horta inaan ka fargarayno ma ka fikirnay food security-geena ma ka fikirnay annagoo intaasoo khayraada haysano inaan sanad walba niraahno abaaraa nagu dhacaysa oo la yidhaahdo Soomaaliya ha loo soo gurmado raashin dibadda ha looga soo qaado miyaysan ceebteen ahayn maanta marka alxamdulillah waxaan rajaynaynaa iftiinka noo bilowday iyo diilada noo muuqata inaan ka dhabayno ka wasaarad ahaan runtii waxyaabana waa noo qabsoomeen wax badan laakiin waa bilow waa runtii waa bilow meeshii aan rabnay ma gaarin hadda mana u dhowin laakiin maanta alxamdulillah waxyaabo badan oo bilaaba gaar ahaan shuruucda oo bilow ka ah iyo bolosiga iyo shuruucda ganacsiga ayaa bilow ka ah horta inaad gudahaagana wax soo saarkaaga aad kordhiso dhiirigeliso maalgashi ganacsiga si loo fududeyn lahaa aad ka hadasho oo adduunyadu uu ku fahmo marka wax badan oo runtii wanaagsan ayaa la qabtay